madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii shanaad ku guuleystay madaxtinimada waddankaasi kadib markii uu helay 98.41 boqolkiiba codadkii dadweynaha reer Jabuuti doorashadii shalay ay ka dhiibteen. wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadan sida ay warbaahintu ay soo xiganaysay. waxaana xarunta ugu weyn ee tirinta codadka ee magaaladaasi Jabuuti si aad looga wada sugayaba natiijadaasi in looga dhawaaqo. hadal kooban uu shalay jeediyay madaxweyne Geele kadib markii uu dhiibtay codkiisa ayuu sheegay inay doorashadu ay si nabad ah ay ku dhacayso isla markaana uu sugayo natiijada doorashada. madaxweyne Geele waxaa la tartamay ganacsade Zakariya Ismaaciil Faarax oo 57 sano jir ah waxaana uu helay 1.59 boqolkiiba tirada guud ee doorashadii ka dhacday waddankaasi Jabuuti. Zakariya oo shakhsi ku cusub siyaasadda Jabuuti ayaa musharaxnimadiisii baraha bulshada ku shaaciyay bishii Janaayo ee sanadkani. madaxweyne Geele ayaa da'diisu waxa ay tahay 73 waxaana la filayaa in uusan mar kale isku soo sharxi doonin xilka madaxtinimo ee waddankaasi Jabuuti maadaama dastuurka waddankaasi uusan ogolaanaynin musharax madaxweyne oo da'diisu ay ka weyn tahay 75 sano waxaana isaga da'diisu ay kasii weynaan doontaa 75 sano marka la gaaro sanadka 2026.